abuurmay oo nasiib darro ah oo maanta gobollada koonfureed dhibaato ku haya erey la yidhaahdo geedkii maraydii oo koonfur bay imaanaya rag iyo haweenba leh islaam bay imaaneen ka hor waxay qabeen soo dhoweyn dad baa ka imaan jiray barigaas dad baa ka imaan jiray waqooyi dad baa galbeed ka imaan jiray ama abaar ha dhacdo ama oonkii aan sheegay ha dhaco ama colaadi ha dhacdo dad baa ka imaanaya koonfur oo koonfur bay imaanaya rag iyo haweenba leh soomaalidii koonfurta deganeed maxay samayn jirtay in the history hadda maaya waxay samayn jireen way soo dhoweyn jireen waxay oran jireen from now on annaga naga mid tahay waxalaalay waxaan anagu aan leenahay waad nala leedihiin xuquuqda iyo waajibaadkayga waa siman yihiin waa waxa maraykanka hadda nagu sameeya soo maha naturalization I was Somali intaan imid waa la naturalize gareeyay waa la idaariyay waxaa tahay maraykan baan tahay and you are here slogan waxaa la oran jiray marka dadka la naturalize gareeyo soomaalidii meelahaas ay ka timid waxaa la siin jiray wax yidhahda aduud ma qashin aduud waxaa weeye haddii qofkii la naturalize gareeyay maraykanka annagaa la qaanay waxaa weeye maraykanka wuxuu ku oranayaa dee waabka annagaa naga mid tahay and you are on your own shaqayso laakiin reer koonfureedku waxay samayn jireen qofkii yani haddii la naturalize gareeyay muxuu samaynaya aduud baa loo samaynayaa dhowr xoolo ari baa la siin dhowr geela hadduu nin yahay waa loo guurin hadduu gabar tahay waa loo guurin wuxuu bilaabay business so our naturalization was invented not only inuu ka horeeyay kan maraykanka wuuna ka heer sarreeyay waa waxaan ku faani karno way soomaalidu inay isxusuusiyaan ay yidhaahdaan ha yani waa sharaftii noocaas ahayd ay ka dhacday waxaa jirta erey aad wada taqaanid tolayn qofka waa la tolayn tolkiisii hore ma jiro sida annagaba haddaan maraykan markaan noqonay aan u nahay maraykan kanna wuxuu ahaan jiray waa la toleeya dadkaasuu ka mid yahay maxaa abuurmay oo nasiib darro ah oo maanta gobollada koonfureed dhibaato ku haya erey la yidhaahdo geedkii maraydii wuxuu ku leeyahay markay xamar ay xoogaa yar iftiin ka baxay kontumeeyadii dowladdii nooga horreysay iftiin baa meesha ka baxay oo layidhi dowladda soomaaliya baa la samaynaya uu ra-iisul wasaare hebel ka yahay cabdullaahi ciise maxamuud allah yarxamhu qolooyin baa odhanaya reer koonfureedkaasi war anuu geedkii maraydii cabdullaahigaasaan walaalahay uu kaaga bixi ninkii dejistay aad soo dhoweysay waageygii hore anugu nin hawiyaan ahaa bukira waa nacasimo waa lagu soo dhoweeyey waa lagu dejiyey qolooyin kalaa ka dambe reer bariga markii dowladihii lixdankii ay dhasheen oo ay iska arkeen qola ayaga ah anigu waagay hore nin daarood baan yani waxaad burburisay naturalizationkii oo aad kumayaal sana aad ku soo jirtay aad ku barwaaqaysnayd aad ku baraartay waxaad ka eegtaan maanta barack obama madaxweynihii maraykanka madaxweynaha maraykanka geedkii maraydii yow ahaa he was luwo waa ninkan hadda mataqaanaa Raila Odinga ay isku qabiilyihiin tabagan ka warrama haddii reer Kenyada oo luwada ah ay yiraahdaan wiilkaygii baa meel noo qabtay aynu tagno oo geedkii maraydii aan maraykanka ku qabsano waxaan malaynayaa khasaaro weyn baa maraykanka markaa ku dhacay marka walaalahay oo geedkii maraydii maskaxda ay kaga jirto waxaad wadaan khasaaraha dalka soomaalida ka iska ilooba geedkii maraydii oo waxaad hadda tahay go from here mar labaad marka waxaan leeyahay qolooyinkii aan lahaa geedkii maraydii
تايسك إلى أو سومالي يوم مدرسة كم هذا تصومت